السلام عليكم بسم الله الحمد لله ومركلة iyo kanaalkeena Theory of Somali Auto Theory of Somali Netherlands ama Belgium waxaan horay soo qaadanay casharada boorarka ahaa calaamadaha wadada waxaana hadda qaadan doonaa insha Allah aan isku dayi doonaa inaan sharaxo macneeyo cajaladan oo loo yaqaan Theory and Exam Training waa cajal ka kooban 13 cashir iyo 13 imtixaan 13 cashir iyo 13 imtixaan waxaan ka bilaabeynaa cashirka noogu horeeyo loo yaqaan Wegbrekers يعني cajalada waxay ka hadlaysaa boorarkii wixii dhan oo isku wada jira insha Allah tacaala xeerarka oo wadada calaamadaha wadada wadooyinka sida kala yihiin iyo maxaa ku yiraahdaa isha yaa ka leh intee istaagi kartaa nalalka gaariga halista iyo waxa soo lamid ah marka waxaan ugu horeeyay cashirka koowaad cajaladan cashirkeeda koowaad markaan dhameeno waxaan aan u gudbeynaa marka tuts wax loo yaqaan oo ah imtixaan cashirka koowaad waxaa la yiraahdaa Wegbrekers isticmaalayaashu wadada maxay kala yihiin maxayna kala naqanayaan isticmaalayaashu wadada Wegbrekers waxaa noogu horeeyay voetgangers waxa weeyaan dadka soconaya mise lugeynaya lugtooda isticmaalaya ee loo yaqaana maxaa ku yiraahdaa voetgangers wuxuuna ka mid yahay wuxuu hoosgalayaa Wegbrekers macna voetgangers asiga xataa wuxuu ka mid yahay dadka wadada isticmaalayaan alla Wegbrekers wax walba wadada isticmaalayo saman numami verkeer wada jirkooda waxaan ugu yeernaa verkeer Wegbrekers zijn onder te verdelen Wegbrekers waxaa loo kala qeybshaa in voetgangers dad lugeynayo soconayo yani lugtooda isticmaalaya an bestuurders iyo dadka darawaliinta ah baabuur baaskiil ama mootoba wada voetgangers zijn alle Wegbrekers voetgangerada wixii wax walbo isticmaalaya wadada die kuwaasoo te voet aan het verkeer deelnemen kuwaasoo kaga qayb qaadanaya verkeerka maxaa ku yiraahdaa lug ahaan yani alle Wegbrekers waxaa la yiri saman waxaan ugu yeernaa verkeer haddaad verkeer maqasho waxaad ogtahay in laga wado Wegbrekers haddaad maqasho Wegbrekersne waxaad ogtahay inay verkeer tahay yani verkeerku iyo alle Wegprekerska waa isku macno ook حتى wanneer hierbij een kleine voertuig zoals bijvoorbeeld een kinderwagen of boodschappenwagen worden meegevoerd behoren zij tot de voetgangers حتى hadduu qofka soconaya ama lugtiisa isticmaalaya uu gaari yar oo kii caruurta ahaa oo gaariga caruurta lagu kaxeeyo amaba lagu riixo uu wato wuxuu noqonayaa maxaa ku yiraahdaa ii sheegay voetgangers dadka lugeynaya ama hadduu gaariga yaro lagu soo qaata boodqabka waa adeega suuqa lagu soo adeegta asna hadduu jiidaya mise riixayabo wuxuu ka mid yahay voetgangers daarnaast waxaa intaa kusii dheer gelden amaba sii dheer khuseeyo reeqalo kale qanuuno kale oo voetgangerka khuseeyo dhibacda hore personen dadka die een fiets, snorfiets, bromfiets of motor aan de hand meevoeren. Dat ama qofba ama wuxuu noqdo oo baaskiil gacanta ka wada. Yani baaskiilka intuu ka degay ayuu riixaya. Ama mootada yar ayuu ka degay riixaya. Ama mootada dhexe ayuu ka degay ayuu riixaa. Mootada weyn loo yaqaan motor ama motorfiets. Ayaga xataa waxay soo gali doonaan voetganger. Qofka mootada hadduu ka dego baaskiilka ka dego uu riixayo waa voetgangers maxaa waxaa laga wadaa dadka lugeynaya isticmaalaya hadduu laakiin saaran yahay waa bestuurders skaters waxaa loo yaqaanaa baasha yar oo afargeeska ah oo hoos ku leh lugaha oo inta lug saarato lugta kaletana aad ku taraarixi karto oo Soomaali loo yaqaano kushineeta camal ayay macnaha la macna tahay rolls kharistan waxaa loo yaqaanaa kabaha yar oo hoos lugaha ka leh oo ilmaha ay wataan
ama taa kuwa dadka waaweyn ay ku galaan macnaha waa tartanka ay ku galaan ayaa loo yaqaanaa iyadana marka waxaa leeyahay kuwaasna waxay ka mid yihiin footganger ayagana soo kale hadda marka waxaan leenahay skaterska qolada oo baasha afargeeska alwaaxa isticmaasho waxay ka mid moqan waxaa loo ogol yahay behalf marka laga soo reebo opet footpath wadada lugta lagu maro of waa trottoirga wadada oo stoopka ama marshabeedka loo yaqaan oo khabrayk marka hataa waxay isticmaali karaan fanin footpath wadada baskiilka wanneer er geen footpath of fietspath is goortuusan jirin wadada lugta ama wadada baskiilka waxaa loo ogol yahay skateradu inay ku socdaan raybanka wadada baabuurta ku wado midka saddexaad personen dadka die gebruik maken isticmaalaya van een gehandicapte voertuig gaadiidka handicapinta amaba wata amaba gaariga yar oo handicapka aanan gaari weyn ma aha laakiin gaari kor ka furan waayo oo yariis ah oo adiga hal qof fadhiisto sida kursi oo loo sameeyey luga waay waxay naqanaya ayagana markay mataqaanaa wanneer zahir me gebruik maken van footpath markay isticmaalayaan wadada lugta of waa trottoirga waxaa ku yiraahdaa waxaa loo ogol yahay saymogen op een footpath of trottoir waxaa loo ogoleen inaysan ku wadin 6 kilomitir ka badan saacadii markay isticmaalayaan wadada loo yaqaano footpathka amaba wadada loo yaqaano waa trottoirga oo ah marshabeediga ama maxaa ku yiraahdaa stoopkana loo yaqaan volgende weggebruikers isticmaalayaasha wadada waxa kaleeto ku jiro bestuurders waa darawaliin wixii wax kaxeynaya baskiil mooto yar mooto dhexe mooto weyn baabuur bas wixii lamid ah bestuurders dadka wax kaxeynaya amaba wax wadaya zayn alla weggebruikers waxaa weeyaan ayaga wax walba wadada isticmaalayo behalf marka laga soo reebo footgangarada dadka lugeynaya waa bestuurders darawaliintu kuna zayn waxay noqon karaan marka dhibicda hore bestuurders darawaliinta oo hore waa van niet motor voertuigen yacni waa darawaliin aanan wadanin waxyaabaha ku shaqeeya matoorka yacni qofka markuu baskiil wato waa darawal laakiin wuxuu wadaa gaadiid oo aanan ku shaqeynin matoor dus zoals fiets snorfiets broomfiets trams waana bromobil an bromobil sida ah baskiiladu ma laha matoor waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay darawal aanan lahayn gaadiidkiisu matoor snorfiska matoor wuu leeyahay laakiin sida theoryga iyo qaanuunkaba dhigay ayba ka soo qaadeen matoor ma lahan broomfitska waa motoda dhexe matoor way leedahay idana sida theoryga dhigay qaanuunkaba matoor macnaa waxay ka soo qaadeen inuusan matoor lahayn tram waa asne matoor buu leeyahay laakiin sida theoryga iyo qaanuunka dhigayba ma laha matoor haddana waa bromobil waa gaari 45 kilomitir ku socon kara gaari yar gawaarida caadiga ayuu la mid yahay xoogaha laakiin orodkiisa 45 kama badna asigana waxaa laga soo qaaday qolada aanan matoorka lahayn laakiin wuu leeyahay matoor dhibicda dambe bestuurders waa darawaliin van motor voertuigen oo wata gaadiidka matoorka leh sida personen auto gawaarida raaxada ama gawaarida caadiga dadka ay qaataanba oo yariiska ah motor fitsan mootooyinka waaweyn oo highwayga korta ayagana waxaa weeyaan waxay ku jirtaa qaybta motor voertuigen waa gaadiidka matoorka leh waa faraqta autos gawaarida waaweyn loo yaqaana looriga ayagana waxay ka tirsan tahay motor voertuigen laba qayb ayaan soo qaadanay wixii ah darawal midda saddexaad bestuurders inta waxaan ka ilooway qolada fardaha ayagana maxaa ku yirahdaa waxa weeyaan cid aanan lahayn waa darawal ayaga laakiin cid aanan lahayn matoor gaadiidka oo handicapka watane maxaa ku yirahdaa ayagana waa darawaliin aanan lahayn matoor insha allah midka saddexaad bestuurders waa darawaliin van voorrangs voertuigen waa darawaliin wata gaadiidka mudnaanta mise baabuurta wata leh mudnaanta maxaa laga wadaa mudnaanta mudnaan waxaa laga wadaa gaariga inuu ka mudan yahay inaad siiso wadada weeyaan macnaa inuu ka hormaro weeyaan waxay noqonayaan markii ay ka leeyihiin mudnaanta waa gawaarida booliiska zoals police voertuigen gaadiidka booliiska
waa brandweer auto waa dabdamiska ambulance marka ay yihiin marka foreign voertuigen aad siinaysa mudnaanta die optische aangeluidssignal voeren kuwaasoo daarayo nalalka ah balawga ama buluuga ah iyo geluidssignal iyo calaamadaha maxaa ku yidhahdaa khaylada dhawaaqa ah daaraya markaas ayay noqonayaan keliya foreign voertuig haddaysan daaraynin wadada xeerarka wadada waad ka siman tihiin waa inay daaraan nalalkii balawga ahaa iyo codkii ama calaamadii khaylada oo la yaqaanay booliiska iyo dabdamiska iyo loo yaqaana ambulanceka haddaysan daarin waa ka siman tihiin waddada marka die optische aangeluidssignal voeren ook andere voertuigen waxaa jiri karta marka gawaari caadi ah oo aanan calaamada lahayn booliiska yacni baabuurta booliiska iyo kuwa dabka damiya iyo kuwa ambulancetaba waxay leeyihiin calaamad lagu aqoonsado gaariga waxaa ku qoran calaamado rinji gooni ah ayaa ku samaysan laakiin waxaa lagu leeyahay baabuur kale oo sida baabuurta caadiga ah oo dadka caadiga ay qaataan oo kale oo waxaa jira oo ah asigana foreign voertuigen oo leh mudnaanta yacni waa gaari dharcad ayaa laga wadaa yacni gaariga lagama dareemayo inuu mataqaanaa oo booliis wato laakiin waxaa ku dhex jiro booliis hadduu wax dareemo wuxuu sameynayaa bahasha yar oo nalka ka daarmayo kor soo saaranaya iyo qayladii kadibna wuxuu daaranaya qayladii iyo nalka marka wuxuu noqonayaa markaas foreign voertuig oo loo yaqaana maxaa ku yidhahdaa waa foreign voertuig waa gaadiidka leh mudnaanta met optische aangeluidssignal hadduu gaari kale caadi ah oo cod iyo nalba kuu daaray wuxuu ka dhigan yahay marka inuu yahay foreign voertuigen gaariga leh mudnaanta inaad siiso waddada macnaha waad oga leexane ama waad ka istaage asaga ha mar horta hore haye geluidaas van rij of wat trek dieren iemand die macnaha dadka wax hogaaminaya sida fardaha ama wax jiidayo oo xayawaanada jiidayo ayagana waxay macnaha yihiin waa darawaliin sida qof maxaa ku dhaha iemand die een paard aan de leidcel meevoert qof farasta hogaanka u haya sida ninkan aan ka argana qof ninkan farasta wuu ka degay wuxuu u hayaa hogaanka asigana waa darawal hadduu kor fuulane waa darawal farasta keliya ayay u tahay khaas baaskiilada iyo mootooyinka haddaad ka degato waxaad tahay voetganger haddaad kortana waxaad tahay bestuurder laakiin farasta haddaad ka degato hogaanka u hayso waxaad tahay bestuurder haddaad kortana waxaad tahay bestuurder insha allah labadaba waa bestuurder maar laakiin the man die zijn hond aan the line uitleidt is een voetganger laakiin qof eygiisa soo wareejinayo kale wuxuu yahay waa voetganger qof lugeynayo let op waxaa lagu leeyahay marka halkan iska jir somiqa voertuigen gaadiidka qaarkii die wel een motor hebben kuwaasoo leh motor zool sida ah waa brumfitska mootada dhexe gehandicapte voertuigen gaadiidka oo handicapinta tramka zijn volgens het reglement verkeersregels en verkeerstekens geen motorvoertuigen yacni waxaa lagu yiri iska jir gaadiidka qaarkii waxay leeyihiin motor sida mootada dhexe loo yaqaano brumfits gehandicapte voertuigen gaariga handicapinta tramka waxay mataqaanaa sida ay macnaha kasoo qaadeenba qolada dejisay xeerarka oo waddada iyo macnaha calaamadaha waddada waxay kasoo qaadeen in uu maxaa ku yidhahdaa aysan ahayn qola aanan lahayn motor ergelden apart regels for waxa quseeyo qaanuun kale een snorfits mootada yar heeft wel een motor ayadana way leedahay motor maar is meestal gelijkgesteld inta badana waxaa lala barbar dhigaa aan fits baaskiilka ayaa macnaha la macno tahay een dierenambulance ambulasta xayawaanadu mag geen optische aangeluidssignal voeren ambulasta xayawaanadu ma daari karto maxaa ku yidhahdaa dhawaaqii iyo nalkii bluega ahaa aan dus geen foreign voertuigen mana aha mar kadib ma ahan gaadiidka leh mudnaanta volgende waxaa la yiri maadaama soo qaadanay maxaa ku yidhahdaa sida qeybaha ay kala yihiin wixii bestuurder ah iyo wixii ah voetganger iyo wixii ah maxaa ku yidhahdaa wato gaadiidka aanan lahayn motorka iyo wixii gaadiidka motorka leh wato iyo wixii ah macnaha leh mudnaanta
kan hore waa voetgangers 4 god weeyaan oo aad gelinayaan wixii voetganger ah kan xiga waa bestuurders niet motorvoertuigen waxaan gelinaynaa maxaa ku yiraahdaa wixii ku shaqeeya wixii oo darawal ah oo aanan wata waxaan ku shaqeynin matoorka laba midka saddexaad waa bestuurders motorvoertuigen wixii wata maxaa ku yiraahdaa gaadiidka ku shaqeeya matoorka yacni waa darawaliin wata gaadiidka ku shaqeeya matoorka midka afaraad waa 4 god sawir ayaa rabaa inaan gelino bestuurada wato maxaa ku yiraahdaa gaariga ama gaadiidka mudnaanta leh bestuurders voertuigen waxaa noogu horeeya madka voetganger islaanta wadata bahalka waxaa loo yaqaanaa voetganger baaskiilka ama mootada qofka riixaya hadduu ka degay waa voetganger gabadha wadata baabuurka ilmaha ama gaariga yaroo carruurta waxa weeyaan waa voetganger ninka eyga wata isna wuxuu noqonayaa voetganger bestuurder niet motorvoertuigen hadda noo haray gaadiidka aanan lahayn matoorka waa farasta ugu horeyn waxa ku xigo waa mootada loo yaqaano broomfits mootada loo yaqaan broomfits baaskiilka asna waa gaadiidka aanan lahayn matoorka waa tramska gaadiidka oo loo yaqaano waa tram asigana wuxuu ka macnaha la mid yahay qolada aanan lahayn matoorka gaariga weyn frat auto wuxuu ka mid yahay kuwa leh matoorka gaariga yar oo jiidaya aan haqwaaqanka wuxuu ka mid yahay asigana qolada leh matoorka kani asna waa heftrugasna wuxuu ka dhigan yahay qolada leh matoorka waa gaariga yar looga shaqeeyo shirkadaha mootadan iyadana waa mootada weyn loo yaqaano motorfits iyadana waxay ka dhigan tahay gaadiidka leh matoorka waxaa inoo haray 4 god waxaana cad 4 god inay yihiin gaadiidka leh mudnaanta waa ambulanceta ugu horeyn waa haddana ii sheegay dabdamiska oo loo yaqaano yacni waa barandawiirka oo daarayo nalka balawga iyo codka insha allah mootada oo wata booliiska iyo gaari yar oo dhar cad ah oo daaraya asigana nalka maxaa ku yidhahdaa ii sheegay iyo qeyladaba waxaan leenahay controlieren waa 16 su'aal 16 waan saxnay 16 goed en 0 fout insha allah waxaan leenahay haddana volgende pageka saddexaad ayaan aadaynaa afraad insha allah sorry weggebruikers isticmaalayaasha waddada ayaan ku guda jirnaa weli waxaa lagu leeyahay under weggebruikers dadka kale oo isticmaalaya waddada voetgangero yacni waxaan soo sheegnay dadka waddada isticmaalaya waa voetgangero laakiin haddeertan waxaa lagu leeyahay qolo kala jirto oo ayagana isticmaalaya waddada oo ayagana ah kuwo oo lugtooda isticmaali doona waxaa lagu leeyahay als automobilisten haddii aad tahay gaariley oo aad gaari wadato ya kun je niet zomaar van uitgaan inaad si fudud askaga dhacdhacsiisa maahan dat alle andere weggebruikers taasoo wax walba waddada isticmaalaya zich aan de regels houden inay xeerarka ilaalinayaan aan goed op je anticiperen macnaha ay adigoo gaari watana ay iska ilaalinayaan macnaha goed op je anticiperen waxa waaye adiga oo iska fiirinayaan oo kaleeto waxaa samaynaysid voetgangers dadka lugeynaya hebben vaak de neiging zich niet aan de regels te houden dadka lugeynaya inta badanaa xeerarka ma ilaaliyaan the voetgangers dadka isticmaalaya lugtooda waarop je het beste moet letten zijn kinderen dadka isticmaalaya waddada oo adiga lagaaga baahan yahay inaad sida fiican aad macnaha oga taxadiirtid waa carruurta waxaa lagu leeyahay let dus goed op in woonwijken si fiican iskaga ilaali meelaha la degan yahay in de directe omgeving van school iyo meelaha sida tooska ah aad ilmaha aad ku arki karto sida iskuullada kale by ouderen aan gehandicapten dadka waaweyn waayeelada iyo dadka handicapinta ayagana iska ilaali by ouderen dadka waaweyn is het gedrag ook niet altijd voorspelbaar dadka waaweyn ayagana dhaqankooda mid la qiyaasi kara maha macno mar walbaba waxaa keenayo way duqoobeen oo maskaxdii duqooday doordat ze niet meer zo goed kunnen waarnemen sababta keentana waxay tahay
xaqiiqda hadday wax arkaan oo kaleete ama gaari soo cararayo kaleete inay ka istaagaan camal macnaha way yaraatay macnaha inay u qaataan run u qaadashadooda macnaha ayaa macnaha yaraatay si fiican run wax macnaha xaqiiqi macnaha uguma qaadanayaan an hun reactie vermogen quwadooda ka ficil celintaana minder wordt way yaraatay nemen zij beslissing go'aano ayay qaadanayaan die je niet direct verwacht go'aano aan si toos aadan oga filaynin ayay qaadanayaan houd rekening met hun gedrag ku tasha dhaqankooda an hi reageer hierop kana ficil celi halkan hadday wax sameeyaan blinden dadkii noolayaasha kuwii herkeen waxaad kaga aqoonsan kartaa ama waad ku aqoonsan kartaa an hun yani blindstock usha ay wataan oo usha indhoolaha loo yaqaan oo waxay leedahay laba macnaha calaamad oo guduud ah volgende waxaa lagu yiri waxaan ku guda jirnaa wili dadka isticmaalaya wadada way khabareekaska waxaa la yiri haddana andar way khabareekas dadka wadada isticmaalaya kale fietsas baskiilaydu broom fietsas iyo mootada dhexe aan snor fietsas iyo mootada yarba fietsers gedragen zich evenals voetgangers vaak onvoorspelbaar in het verkeer baskiilaydu ayagana waxay u dhaqmaan mid la mid ah dadka soconaya ama lugtooda isticmaalaya mid la mid ah inta badanaane mid la qiyaasi kara maaha markii lagu jiro wadada zo hebben zij de neiging bij een rode verkeerslicht marka way iska indhatirayaan markuu nalka uu samaafar hayahay guduud een keer om zich heen te kijken hal mar ayay macnaha meelahooda fiirinayaan dhinacyada iska fiirinayaan aan vervolgens kadibna aan het fietsen zijn aan het fietsen kadibna baskiilkooda ayay sii wadanayaan yacni dadka baskiilada ayagana xeerarka ma dhowraan way iska inkiraan nal guduud ah oo oonu ku sawirayn baskiil ayay arkayaan hal mar dhinacyada fiirinayaan wayna sii soconayaan qaanuunkana ma zij zijn dan ook relatief vaak betrokken bij een ongeval marka inta badanaa waxay ku lug lahaadaan shil baskiilaydu waay young broom and snorfisas dadka da'da yar oo mootada dhexe iyo mootada yarba wata ayagana vertonen dezelfde kenmerken als fietsers ayagana waxay muujiyaan calaamadahan soo sheegnay oo mid la mid ah baskiilaydu zij voelen zich vrij en hebben het idee dat hen niets kan overkomen waxay macnaha ay ka dhadhacsan inay free yihiin mise xur yihiin ama waxayba yani ay dareemayaan inay free yihiin ama fikir waxaa ka dhadhacsan inay free yihiin ama waxaa ka dhadhacsan oo kaleete free inay yihiin oo ayagana waxba uusan ku imaan karin ama shil ama waxba uusan qabsan doonin houd hier rekening mee ku tasho aan laat je niet door hen verrassen iyosan kaa cabsi gelinin oo kale verrassen waxa waaye wax aad la cajaa'ibto iyosan ku macnaha hala cajaa'ibin oo kale yani waxaa laga wadaa verrassen wax aad ka naxdo kale ama aad la oo kugu noqdo cajaa'ib houd bij het inhalen voldoende tusruimte markaad dhaafaysid masaafa kugu filan oo dhexda ah hayso houd bij het inhalen voldoende tusruimte houd goed rekening met kinderen waxaa lagu yiri ku tasho caruurta zeker huwashi als ze zich in een groep bevinden markay group yihiin yani caruurta markay baskiil wataan ay dan group yihiin si fiican ugu tasho waxay samayn karaan yani waxaadan filayna samaynayaan inay wadada ka soo baxaan ama jiirag ama baskiilka ay soo wareejiyaan kaleete adiga sidaan filayn aad macnaha aad ugu dhacdo midka xiga waxaa la yiri weggebruikers weli oo ku guda jirnaa isticmaalayaasha wadada waxaa ka mid ah qola loo yaqaan motorriders mootoleyda motorriders waxaa laga wadaa dadka mootada waaweyn wada mootada waaweyn waxa weeyaan mootada snellwayga korta oo 130ka ah highwayga korta ayaa loo yaqaanaa motorriders waa mootoleyda by motorriders mootoleyda
is een duidelijk onderscheid te maken tussen de plezierrijders en rijders die het idee hebben aan een wegreis mee te doen. يعني mootoleyda waxaad kala saari kartaa si cad aad u kala saari kartaa qolo oo group maxaa ku yidhahdaa oo u wado mootada si bashaal ah iyo group kaleete oo ka dhadhacsan in ay ku jiraan imtixaan ama tartan wadada tartan inay ku jiraan oo kaleete ay ka dhadhacsan De eerste groep, groepka hore, riders oo mootoleyda gedragen zich in het verkeer. Waxay dhaqankooda uu yahay marka lagu jiro wadada zoals verwacht mag worden sida ka filaysid oo hadda lagugu soo sheega ah oo inay u wadaayaan baashaal ahaan de andere groep groupka kaleentane oo u wadaaya inay ku jiraan macnaha waa tartan oo kale ay ku jiraan laat duidelijk andere gedrag zien si cad ee wuxuu ku tusayaa dhaqan kaleete en maakt het voor anderen moeilijk hierop te anticiperen qofka kale oo adiga gaari oo haddii aad gaari wadato macnaha waxay kaaga dhigayaan aad macnaha si adag in ayaga aad ku tashato waxay samayn lahaayaan ay qaban lahayn macnaha qolo tartan ku jirto oo wadadan macnaha oo kula saaran inaad iska ilaaliso way ku adkaane zij halen je rechts waxay ka dhaafayaan midigta sida caadada ahne lama ogola in midigta layska dhaafo layska inhaal gareeyo aan ka wadaa layskaga moodo aan halen snelheden waxayna ku macnaha markay dhaafayaan qofka kale baabuurta wado waxay snelheid xawaaro waxay ay isku dayayaan inay macnaha kugu moodaan die ver boven de toegestaande snelheden liggen kaasoo ka saramarsan inta la ogol yahay si zaa'id ooga samaysan bijvoorbeeld ama mathalan waxaa la ogol yahay wadada 100 oo kaleeto 100 inaad ku wado kilomitir saacadii aa la ogol yahay asigii marka wuxuu ku wadayaa 180 170 oo kale mise 150 marka xawaaraha ay ku wadaan wuxuu ka fog yahay inta la ogol yahay houd rekening met beide groepen motorrijders waxaa lagu yiri ku tasho labada group yani houd rekening ku tashowa met beide groepen labada groepa oo mootoleyda ah en probeer iskuna day gevaarlijke situatie te voorkomen inaad ka hortagto waxyaabaha halista door hiermee vooraf rekening te houden adigoo isku dayaayo intaana waxba kugu dhicin inaad aad ku tashato mid ka xiga insha allah volgende waxaa la yidhi ruiters mootoleyda en glijders iyo ruiters dadka fardoleyda ah en glijders iyo dadka wax jiidayo oo maxaa ku yidhahdaa farasta ama trek diiran xayawaanada la jiidayo oo ah veyga oo xayawaanada oo macnaha aan dhaqano lo'da iyo wixii lamid insha allah je dient als automobilisten waxaa ku khasbantahay haddaad tahay gaariley je dient als automobilisten haddaad tahay gaariley waxaa ku khasban tahay goed rekening te houden inaad ku tashato met ruiters en glijders van rij en trekdieren en vee inaad ku tashato dadka fardoleyda ah xayawaanada jiida inaad ku tashato ayaa ku khasban tahay zij behoren waxay ka tirsan yihiin dooda bestuurders dad wax wadaayo waa darawaliin wanneer je een ruiter wilt passeren haddii aad doonaysid inaad garab marto faras zorg dan voor voldoende tussenruimte ka taxadir marka in maxaa ku yidhahdaa markaad dhaafayso kale inta dhexdiina ku jirto mid oo macnaha kugu filan ha ahaato ongeveer qiyaastii 1,5 meter 1 meter iba dhexdiina ku jirto isku day je kunt vooraf niet inschatten ka hor ma qiyaasi kartid hoe het paard zal reageren sida uu macnaha kaaga ficil celinayo farasta wanneer je het passeert markaad aad garab marayso kale aad dhinaceeda marayso of je aad opgemerkt bent inay ku dareento in kale door het paard aan de ruiter farasta inay ku dareentay ama ku fahanto kale houd voldoende tussenruimten bij het inhalen van een ruiter markaad dhaafaysid farasta masaafo kugu filan oo dhexda ah hayso weggebruikers isticmaalayaasha wadada en ongevallen iyo shilalkaba in verenweg ilaa iyo hadda de meeste gevallen xaaladaha oo badnaan zijn weggebruikers mensen de oorzaak van verkeersongevallen
in 90% van de ongevallen ligt de oorzaak bij mens. يعني ilaa iyo hadda waxaa la yidhi xaaladaha oo la ogyahay oo yani macnaha oo badan zaayidaba khabaraykaas dadka isticmaalaya waddada mens dadka ayaa ah sababta keentada oorzaak van verkeers ongevallen shilalka ka dhaca waddada in 90% ama 90% 90% van de ongevallen shilalka dhaco 90% ligt de oorzaak bij de mens sababaha keena waa dadka signalen van andere weggebruikers calaamadaha ay ku siin doonaan dadka kale waddada isticmaalo wanneer andere weggebruikers markii oo dadka kale waddada isticmaalo yani waa kniperen alarm liqteen fuuren ama ay ku daarayaan nalka oo loo yaqaano waa alarm liqta oo ah farajooyinka afarta dhinac ka daarma يعني betekent waxay ka dhigan tahay dit in de meeste gevallen xaaladan ugu badnaan dat file of zeer langzaam rijdend verkeer is ama inuu jiro zaxmad fila jirto ama maxaa ku yidhahda ii sheegay verkeer macnaha of zeer langzaam rijdend verkeer ama verkeer oo si tartiib oo macnaha u socdo een voertuig gadiid wordt gesleept ama haddii kale waxaa la jiidayaa gaari halaysan of een voertuig stilstaat ama gaari baa istaagsan waddada met pech oo halaysan yani met pech waxa weeyaan gaari haysato nasiib daro oo istaagsan laakiin pech waxaa laga wadaa nasiib daro laakiin sida caadada ee gaariga ka halaysan unbaa laga wadaa yani gaari istaagan oona u istaagan sababa macnaha gaari inuu ka halaysan yahay gaariga ka halaysan yani wuxuu ku daarayaa afartii nal oo farajooyinka ahaa waxay ka dhigan tahay ama inay meesha zaxmo ka jirto ama inay baabuur tartiib ay macnaha ay u socdaan ama in maxaa ku yidhahda ii sheegay gaari meesha taagan yahay oo uu ka halaysan yahay gaariga still stand police gaari police met zwaailiqtan oo taagan gaari police oo taagan oo u daaran nalka zwaailiqta loo yaqaano oo balawga ah een politie auto gaari oo askari of motor ama mooto met zwaailiqtan oo nalalka ku daaray nalalka loo yaqaano zwaailiqtinka oo balawga ah die stilstaat kaasoo istaagan op de vluchtstrook waddada loo yaqaan vluchtstrook waarschuwtje wuxuu kaaga digayaa voor een filo zaxmad stilstaande voertuigen ama gaari taagan ten gevolgen van een ongeval sababo keentay shil of een geblokkeerde rijstrook ama rijstrook la blokkereeyay bij een ongeval shil moet je tevens rekening houden hadduu shil dhaco xataa waxaa inaad macnaha waa inaad ku tashataa met bestuurders baabuurta kale dadka kaleeto oo gaariga kala wadaya die yani blossling kuwaasoo si lama filaan ah remen oo qabanaya fariin out nieuwsgierigheid waxaa laga wadaa macnaha warjeclida waxa weeyaan shil baa meeshuu ku arkay fariin buu qabanaya si lama filaan ah wuxuu rabaa shilka dhacay iyo wuxuu yahay inuu arko adiga marka waxaa lagu leeyahay gaadiidka baabuurta kale dadka kaleeto baabuurta wata iska ilaali hadduu shil meel ka dhaco yani si lama filaan ayay fariin u qabanayaan dad ayaga iska ilaalin adiga maana oo ay fariin qabtaan waa ku dhici kartaa om waar te kunnen nemen si run oo ugu qaataan what precies is gebeurd si macna run macnaha ugu qaataan wixii sida oo macnaha dhabtaa dhacay bovendien kunnen voetgangers waxaas taasii dheer dadka lugeynaayo oo badaraaybaan ku socday lugta lopen die betrokken zijn inay ka mid ahaayeen ama ku lug lahaayeen bij het ongeval shilka laat je zelf in elke geval niet afleiden door het ongeval yani dadka oo baabuurta wada oo si lama filaanta u qabanaya fariinka iyo dadka macnaha oo dhan iyosan adiga macnaha ka mashquulin iyo shilkaba yuusan ku mashquulinin yani adiga hortaada fiiri baabuurta hortaada socota fiiri waxay sameynayaan volgende waa kii noogu dambeeyey maadaama dhamaynay hofstugan ama cashirkan waxaan isku dayayaa 16 su-aal inaan ka shaqeyno asaan ku ogaano waxaan sameynay iyo waxaan qaladnay insha allah waxaan leenahay inaan soo baranay cashirkan iyo
inaan macnaa si fiican u baranay inaan mataqaanaa ii sheegay waxa ay nooga dhiman yihiin waxaan leenahay marka tuts maken imtixaanka samee Is de vrouw met het gehandicapte voertuig een bestuurder? waxaa la yidhi naagta wadato gaadiidka oo handicapka macnaha madaro walba waa haa hadda waxay ku wadaa raybanka waddada gaariga ku socdo Welke bewering is waar? waxaa la yidhi jumladay saxan misqaalkee saxan by kinderen in een groep moet je rekening houden met onvoorspelbare reacties ilmaha waa inaad ku tashataa markay group yihiin waxa ay samayn karaan maxaa ku yidhahdaa arrin aadan ka filayn Valt de skieler onder de categorie bestuurders? skillerka oo cunuga oo wata kabaha oo baabuurka kaleeta ah lugaha leh muxuu noqonayaa bestuurder maya waa ney waa voetganger Iemand die zijn paard aan het leidsel meevoert is een... qof mataqaanaa hoggaanka u haayo farastiisa maxa weeyaan waa darawal mise bestuurder waxaan leenahay waa darawal bestuurder weeyaan Is een ruiter een bestuurder? ruiter waxaa loo yaqaanaa idin waa farastoo kaleete ma darawalba ayaa lagu leeyahay idin waa yaa idina waa darawal bestuurder weeye Is een brandweerauto die geen optische en geluidssignalen voert een voorrangsvoertuig? gaariga dabdamiskaa la dhahay oo aanan daaraynin nalka iyo codkaba ama khaylida miyuu yahay gaariga mudnaanta leh waa ney markuu daaraayo keliya ayuu yahay darawal Is deze vrouw met de rollator een bestuurder? islaanta oo wadata waxa loo yaqaano waa rollatorka ma darawalba maya waa voetganger darawal maahan Wat is de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen? macnaha sababta ugu muhiimsan oo keenta shilalka maxay tahay waxaa keenaan dadka shilalka waxa keena oo ka dhaca waddada sababta ugu muhiimsan waxa weeyaan dadka keena shilalka Is iemand die zijn hond uitlaat een bestuurder? qof oo eygiisa soo wareejinayo in uu mataqaanaa kusoo wareejiyo meelaha cawska ma darawalba maya waa ney waa maxaa ku yidhahdaa ii sheegay qof oo socdo Een bromfiets is volgens de wet een... waxaa la yidhi mootada loo yaqaano bromfiets oo mootada dhexe sida uu dhigay xeerka muxuu ka mid yahay niet motorvoertuigen of motorvoertuigen waxaa leeyahay markaa niet motorvoertuigen gaadiidka aanan lahayn motorka Is deze auto met optische en geluidssignalen een voorrangsvoertuig? waxaa la yidhi gaarigan oo daaraaya med leh waaye nalka balawga iyo calaamadda oo keylada ah oo inta ah ma voorrangsvoertuiga waxaan leenahay waa ya gaariga mudnaan leh Is een tram een motorvoertuig? waxaa la yidhi tramka miyuu yahay gaadiidka leh motoorka maya waa ney asiga waxa weeyaan niet motorvoertuigen Welke bewering is waar? waxaa la yidhi jumladay saxan plezierrijders op de motor gedragen zich vaak zoals verwacht mag worden waxaan leenahay qolada mootada wada Iemand die zijn motor voortduwt is een... waxaa la yidhi qof oo mootadiisa hore u riixaayo muxuu ka mid yahay ma darawalba mise waa voetganger mise dadka lugeynayo waxaan leenahay dadka lugeynayo waa bay Welke bewering is waar? jumladay baa saxan ayaa la yidhi waxaa saxan ouderen nemen wel eens onvoorspelbare beslissingen omdat ze niet meer goed kunnen waarnemen waa c dadka waaweyn waayeelada
go-aano aadan ka filaynin ayay qaadanayaan oo aan qiyaasi karin insha allah. waxaan u malaynayaa waxaan sameynay 15 vragen mise 15 su'aalo oo aan sameynay waana goed ayuu leeyahay aan ku jawaabnay je hebt 0 vragen fout waxaa samaysay maxaa ku yiraahdaa su'aalo oo aanan hal su'aal maadan qaldin oo kale. marka insha allah waxaan cashirkan intaas ku keen doonaa hadduu ilaahay idmo. waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin kanaalkeena booqashada soo booqateen kuna soo dhawaada insha allah kuna soo biira waan idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.